أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. channel كان حلقه مقعبة آمنة الشيكو channel وchannel سو قد بنايا قصوينك إن شاء الله تعالى. قصوين معان ayaan maqli doonaa kuwa naga yaabiya kuwa wacyi gelina iyo kuwa cibra qaadasho kulli dhamaan isku jiraan. maanta waxaan ka hadli doonaa qiso la magac baxday The Menendez Brothers, laba wiil oo walaalo ah oo marka qiso yaab leh ku socoto. labada wiil waxaa la kala dhahaa Joseph Lel Menendez and midka kalena waxaa la dhahaa Eric Menendez. labadan wiil aabahood waxaa la dhihi jiray Jose Menendez, hooyadoodna waxaa la dhihi jiray Mary Louise Kitty Menendez. Kitty ay ku magac dheereed. horta qisadan waxay ka bilaabanaysaa aabahood Jose, aabihii labadan wiil dhalay wuxuu ka imaaday wadanka. horta qisadan sideedaba waxay ka dhacday wadanka Mareykanka, gaar ahaan Los Angeles. marka aabihii wuxuu ka imaaday wadanka Cuba oo wuxuu imaaday wadanka Mareykanka sanadihii kontameeyadii 1950s ayuu imaaday. markuu imaaday wuxuu ku soo degay wiil in adeerkiis gurigiisu ku soo degay meeshuu shaqay wax ka raadsaday. isla markii iyadana scholarship oo swimming oo wuxuu helay dabaasha. scholarship dabaasha markuu helay ka bacday wax la joogi jiray ninkii wuu korsaday. wuxuu meelaha maqaayadaha iyo meelaha uu ka shaqeeyo dishwasher wax ka noqdo. adi calaaya taxaal aabihii wuxuu noqday nin successful ah. wuxuu ku biiray filimaanta dadka ka shaqeeya oo jila oo dhiga oo filimaanta qora dadkaasuu ku biiray. adiga wax la joogi jiray sanadihii dambe waxay isheleen gabar lagu magacaabo oo hadda aan soo sheegnay Mary Louise Kitty oo guursaday sanadka 1968 10th of January waxay u dhali doontaa wiilka weyn oo Joseph Lel Menendez la dhaho. sheekadana waxay ku socon doontaa labadan wiil. sanadkii kale oo 1970 March 27th waxay dhashay November 27th waxay dhashay bisha 11 taariikh 27 sanadka 70kii waxay dhashay wiilka kale oo la dhaho Eric Menendez ee dhashay. hadda laba wiil ay saas ku haystaan, Jose iyo Mary. Jose iyo Mary ilmahoodii way u koreen, iskuul ay geysteen, tennis ay barteen, ciyaaraha tenniska la dhahaa. laakiin aabahood ayaa nin fiican aan ahayn. aabahan asaga wuxuu ahaa dadka aabayaasha ilmaha waxa aan kala tashanin maxaad rabtaa aan dhihin, ilmaha interestkooda aan weydinin, waxay ayaga ku faraxsan yihiin aan weydinin. laakiin wuxuu asaga ku faraxsan yahay ku qasba oo ku dhiirigeliya asagoon ilmihii qalbigiisa aan fiirinin oon ogaanin qofka inuu waxa raali u ka yahay. marka wiilashii labadaba tennis players uu ka dhigay. wiilashii sidii ay tenniska ku qaateen ayagoo aan ku qanacsaneen, laakiin stars ay noqdeen. wiilal xidig oo waxay noqdeen xidig noqday oo meesha caan ka noqday. marka sanadka 1989kii markii la maraayo 1989kii August markii la joogo ayaa wiilashan waxay kala marayeen. Lel wuxuu jiray 21 sano, Eric wuxuu jiray 18 sano. maxaa u dhaxaysa 3 sano miya something like that, 2 sano miya u dhaxaysay. marka wiilashan 1989kii wax la yaab leh gurigooda ka dhici doona. maxay tahay waxaas? habeenka taariikhda 20 markii la joogo bishana ay tahay August taariikh 20 sanadka
1989 markii la joogo ayaa waxaa dhacday habeenada ka mid ah ayaa wiilashii waxay waceen booliiska ayay waceen 911 ay ku dhufteen booliiskii ayaa imaaday booliiska markuu soo galaaye wiilka la dhaho Eric waa midka yar booliiskii waxay ku soo mareen isagoo guriga boodkiisa mise banaankiisa mise deerkiisa taagan fence-ka taagan oo oynayo marka ay soo galeen waxay la kulmeen Eric oo oynayo booliiskana waxaa u yeeray Eric iyo Lyle Joseph and Eric a u yeereen booliiska labada wiil oo isla dhalatay maxaa loogu yeeray booliiska habeenkaas taariikh 20 bisha August 1999 maxaa loogu yeeray booliiska waxaa loogu yeeray wiilashii ayaa markay soo galeen waxay dhaheen annaga waan maqneen booliiska ay waxay u sheegeen habeenkaas annaga banaanka ayaan jirnay habeenka caaw ahaa banaankan ku maqneen movie-aan aadnay movie markaan sii socono annagoo dhaxda sii maraynaan soo laabanay waxaan u soo laabanay in Eric ID-giisa ayaan ka tagnay ID-gii Eric u soo laabanay markaan soo noqonay waxaan aragnay aabihii iyo hooyadii Jose iyo Mary Louise Menendez oo dhiigooda dhex jiifa oo gurigii ayaga ay lahaayeen oo ku yaala Beverly Hills meel la dhaho ku yaala lagu dilay oo meyd oo nafta ka baxday booliiskii maxay sameynayeen immediately isla marka iyada labada qof waa la qaadaa interview ayaa la marinaa interviewgii la mariyay wiilashii waxay sheegeen inay banaanka ku maqnaayeen habeenkaas isla markii iyada ay dhaxda ka soo noqdeen oo hooyadii iyo aabihii oo la dilay ay ku soo laabteen okay wiilashan horaan crime u soo galeen wiilashan aabahoodii ayaga xiriirkooda say ahaayeen hooyadood iyo ayaga xiriirkooda suu ahaa wiilashan aabahood horta nin adag u ahaa Mr. Jose nin aad iyo aad u adag ilmihiisana ku adag oo ku dhiirigeliye wuxuu asaga bas u rabo ilmihii wuxuu barta dhahay labadii wiil wuxuu ku dhiirigeliyay inay bartaan ciyaarta la dhaho tenniska markii ay baranayeen 1988kii wiilka la dhaha Eric waxa uu la xirtay dhalinyar oo asagoo kale ah waxaana ay ku soo baxeen maalin maalmaha ka mid ah tuugo booliiskii ayaa soo qabtay tuugada la soo qabtayna waxaa ka mid noqday wiilka la dhaha Eric waa 1989 maybe that was 17 years markuu jiray hadda 1989 waa markuu 18 ka jiro Eric the same year wiilka la dhaha Lyle asagoo iskuulka jooga wuxuu ku jiraa Princeton University ka mid ah uu dhiganayo university ayaa wax asagana wuxuu ku soo baxay waxa lagu qabtay qash miyaa la dhaha copingkii asna lagu arkay kii weynaa hal sana ayaa la suspend gareeyay hal sana ayaa cida soo joog la dhahay oo la soo celiyay oo cida u soo laabtay labada wiil labadaba maxay ku jiraan crime kana iskuulkii ay wuxuu sameeyay shaqadii ilmaha kale intuu xaday uu asaga isku qoray plagiarism wax la dhaho sameeyay kana muxuu sameeyay burglary oo guriyaha dadka jabsada kamid uu noqday oo lagu soo qabtay isagoo yar kana labadaba tuuganimo un bay sameeyeen adi calaay kulli xaal oo kala nooc ah labada wiil hadda ka hor waxaas soo mareen fine aabahood iyo hooyadood markay dhinteen maxaa
ay sameeyeen wiilashii maxaa laga rabay inay noqdaan wiilashan waxaa la rabay maadaama ay ayagoo banaanka ku maqan ay habeenkaas soo galeen hooyada iyo aabihi ayaga dhale ay ugu soo imaadeen guriga ay ku arkeen ayagoo dhiigooda dhex jiifa oo meyd ah maxaa la rabay inay noqdaan waa dad qashuucsan oo macnaha yacni qalbiga ka xanuunsan oo ooyahay inay ahaadaan soomaha oo macnaha oo inay galaana la rabay soomaha waqti farxad la-aan ah waqti oohin ah inay galaana la rabay mayna ku jirin waqtigaas asaga waqtiyadii oo ku soo xigay isla waqtigii asaga ahaa bilooyinkaas gudaheed museegi iyo maamadii waxay dhinteen soomaha taariikh 20 August maalmo ka bacdi wiilashan waxaa la sheegay meeshii laga rabay inay ooynaayeen ama laga rabay inay qashuuc iyo qalbi jab iyo macnaha sadness ay muujiyaan waxaa lagu arkay dad loo tari ama wax guul lacag helay oo kale nimankii u dhaqanay aabi by the way nin wuxuu ahaa xoolo ilaahay si marka iyada oo dhimana accountkiis waxa ku jirtay $14 million ku jirtay isla waqtiga iyada ahayd wiilashii waxaa lagu arkay saacado qaali ah baabuur qaali ah maxaa restaurant gado kan iibsa business noocaas ku biir adi by the time 6 bilood ay ka soo wareegtay $700,000 ee wiilashii Spain gareeyeen marka wiilashii isla markii waxay noqdeen dad shopping ku waashay dad istareexaya dad oo dalxiis vacation u kacaya wiilashii meel ma lagu arkin inay macnaha ay qabaan wax grief ah wax sadness ah wax oo maaragtay qalbi jab ah wax oohin ah midna lagu ma arkin marka maalin maalmaha kamid ah Eric midkii yaraa wuxuu la kulmay therapist muxuu la kulmay waagi guriga uu jabsan jiray ee tuugada uu ku biiri jiray ninkan therapistiga loo qabtay haddana asagii kollay qalbigiisa fiicnaani waaye qalbigiisa uu dagi waaye maadaama qof waalidkiis gacantiisa ku dili uu yahay qalbigii ayaa wuxuu isdhahay macnaha raaxa iyo farxad la-aan markay ku dhacday therapistigi waagi loo geyn jiray uu haddana aaday uu u tagay therapistigi u tagay adiga dhowr bilood ka bacdi uu la fariistay therapistigi ayaa maxay ahayd uu ku conference garay uu u sheegay wixii sameeyeen asagii walaalkiis wuxuu yiri niyow aniga hooyaday aabahayna la dilay oo guriga horta dawladda waa idinka soo kala dhaafay booliiska markay arkeen dadkaas sida loo dilay waxaa lagu dhuftay 15 xaabadood ayaa laba gaan laga soo tuuray oo shotgun ah ayaa laga soo tuuray 15 rasaasood hal mar dadkan lagu furay waxay isdhaheen mindhawaa dad gang dad macnaha koox dadkan dishimoogiye ma loo soo dhiganan hal qof iyo laba qof dadkan wax ku sameeyay waxaa kaloo loo qaatay ninkan maadaama uu nin lacag leh oo filmaanta lacag ka sameeyay uu yahay dadkii businesska iskula jireen miyaa kollay waa dadkaas la raadiyo iyo iskula jireen businesska iyo cadowgiisa ahaa misana dad uu filmaan si xun uga qaaday filmaantan dadka isqaawiye iyo waxaas haduu ku jiray dad noocaas uu si xun u yeelay miyaa jirto adi meelo kale ay abaareen booliski dadkan looma soo dhiganin oo gudihiisa iyo gurigiisa iyo meelahan midna looma soo dhiganin marka wiilkii ninkii uu aaday ninkii uu macnaha uu qalbigiisa u soo bandhigay waxa uu suubiyay asaga walaalkiis ay suubiyeen marka wiilkan therapistiga uu therapist ahaan ugu tago wuxuu leeyahay gabar girlfriend oo zilaalra ninkan wuxuu lahaa gabar girlfriendti way ogeed macnaha wiilkan Eric markuu imaaday midkii yaraa uu imaaday kii weynaana uu soo raacay maalin maalmaha kamid ah kii weynaana wuu imaaday teeba laga duubay marka labadoodaba hal mar u dhahay okay hadii aad maagteen ina waxaan ii sheegtiin sheekadan waa inaan record gareeyno teebkan ii record gareeya wiilasha teebkii record gareeyeen way ku hadleen wixii dhan way sheegeen habkay u dileen macnaha u dileen wax walba way sheegeen
عجيب والله يا أبوي حسبنا الله ونعم الوكيل الله أكبر gabadhi girlfriend oo therapist girlfriendtiisa waxay sameysay way isku kaceen ayagii ka dhax talatay break baa ku dhacay macnaha waxay sheegatay ninkan inuu dilo inuu jirdilo inuu wax ku sameeyo dhibaato ay ka sheegatay booliiskii aaday dhibkeeda ay soo sheegatay dhibkeeda maadaama ay soo sheeganaysay sheekadina way geysay waxay tiri the Menendez brothers ma xasuusatiin the Menendez brothers the Menendez family oo la dilay ma xasuusatiin ninkii iyo naagtiisa fine yes waxaa dilay oo conference gareeyay oo tape laga record gareeyay Eric and his brother Lil Eric iyo walaalkiis Lil Joseph Menendez and Eric Menendez ayaa tape laga duubay tape-kii waa idin wadaa waa kan wiilashaas ayaa dilay waalidkood xasbunallahu wa ni'mal wadanka Mareykan waagaas TV channel aan laga sheegaynin journal aan soo qoraynin meel wariye u taagan yahay warkaas lagu haynin dadweynihii dhan waa TV-ga warkii ugu badnaa oo waagaas iyada waqtigaas iyada aad loo daneynay sidii la soo qoray marka booliiskii u tagtay way u sheegtay booliiskii markay u sheegtay therapist-gii waa loo yeeray warkii wuu cadeeyay marka waa la aamini waayay warkii dadka waa ku socon waayay waxaa dhacday inaa wiilkii weynaa loo yeeray ama la soo qabtay oo interview la mariyay markay ahayd taariikhda 8 bishii 3 March 1990 kii weynaa ayaa gacanta lagu soo dhigay kii yaraa wuxuu ku maqnaa Israel wadanka Yahuud oo ku maqnaa asna wuxuu imaaday iskiis isu keenay taariikhda markay ahayd 11 maalmo yaraa u dhaxeeyay March the same year 1990 uu imaaday asna Eric markuu imaaday wiilashii waa la waraystay wax fara badan ay sheegeen oo waxay yiraahdeen wiliba wiilka weyn oo cadeymo keenay oo dhahay aabahay waan dilnay hooyadayna waan raacinay waxaan u dilnay horta hooyaday naag alkuliste on aabahay naga celinin oo nagu fiirsatay ahayd hooyo aabahayna waxaan u dilnay ninaan noo naxariisanin ninaan annaga waxaan doono oo qalbiga anaga aan ka rabnay wuxuu asaga doono nagu qasbo oo nasan duleeyo hadiiba hana sii ahaatee waxaa kaloo noo dheeraad ahaa inuu na abuse gareyn jiray uu na farxumeyn jiray waagaan yareen farxumeyntina uu nagu sii waday ilaa markaan weynaanana oo choice-ka anaga kaariyaaga aan rabna ma kaariyaagu asaga noo dooro uu sanka naga gelin jiray uu nagu soo duleyn jiray marka self defense wax la dhahaa difaac nafsiyan aan isku sameynay annaga naftaan difaacanayna macnaha self defense aan sameynay ayaan taas u sameynay marka wiilkan gabar ay kaasins yihiin oo marqaati noqotay la helay gabar soo baxday waxay tiri wiilkan weyn Lil Joseph Menendez warku uu sheegayo waxa waaye waxba ka run ah annagoo yaryar oo hadda ka hor ii sheegto wuxuu dhahay aabahay saana ugu sameeya oo i farxumeeya aniga macnaha dhibkaasan aabahay ku qaba taas oo wiilkan hadda ka hor ii sheegay warkiisa waxba ka jira in self defense inuu waxaan u sameeyaa dhici karta waaye adii calaa kulli xaal trialki oo maxkamadii waxay bilaabatay sanadka markuu ahaa 1993 way soo noqotay teebkii laga duubay waa la xaqiiqsaday ina ayaga ay duubeen oo raali ka yihiin mise ina laga soo xaday oo ayaga macnaha oo privacy-gooda loo dhacayo oo privacy ayaga ay raali ka ahayn tii 2 sano qaadatay wax la socdo sanadka markuu ahaa 1996 wiilashii waa la convict gareeyay waa la xiray xabsi waxaa la geliyay daa'iman life sentence wax la dhahaa lagu sameeyay meeshayna ku jiraan 2 xabsiya la kala geliyay laakiin markii dambe waa la isku keenay hal xabsiya la keenay halka xabsi ay daa'iman ku jirayeen 30 sano markii ay ka soo wareegtay taariikhdan iyada markii la qoraayay weli way ku jiraan midkoodna ma dhimanin mana la soo deynin wax parol la dhaha oo macnaha oo lagu soo deynayo parol macnaha maxaa la dhahaa yani markuu
madaxweynaha naxariis yani loo sameynayna ma jirto kwa hivyo saasay ku joogeen forever therefore waxaan idinka baryaa oon idinka codsanaa channelkan inaad subscribe ku dhahdiin like-ta saartiin like-tana waa iska bilaash subscribe-ka waa bilaash waxa lacag ee malaha waa codsi walaalnimo waaye channelkan soo kala kiciya oo soo kiciya comment fiican oo encouragement oo dhiirigelin ahna ku soo qor wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu